kulankan ayaa ahaa mid ay maanta wada yeesheen odayaashii waxgaradka garaadada suldaanada beelaha dhulbaahanta iyo beelaha garxajiis waxayna kulankaasi ku wada gaadheen heshiis isla markaasina ay codkooda ku siinayaan murashaxa xisbiga isbeddeldoonka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha waxgaradka salaadiinta garaadada oo horkacay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale, wakiil garaad Cali Buraale, wakiil garaad Salabaan garaad Maxamed, cuqaal tiro badan isla markaasina ka kala yimid gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, iyagoo cadeeyay mowqifkooda ay ku muujinayaan taageero hayaan murashaxa xisbiga isbeddeldoonka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. annagu waxaan wadnaa markaan shirnay aanu dhinac walba ka eegnay aanu dalka qiimaynay iyo xaaladdu halkay marayso waxaanu wadnaa musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. waa idin hadlaqayna waxa xaqiiqo ah maalintaan soo galay sida inoo soo dhaweysay inaan cid soo dhaweyn maanta hadaa soo shirteenna sida loogu soo shirteen inaan cid ugu shirin baa xaqiiqana uu ka markacaya la shak ilaahay hayga sharfo waa mahadsantiin aanu idin leenahay dhulbahanto maanta waxaanu idin wadnaa caafimaad waxaanu idin wadnaa inaanu wax badan qabanno kulmiye wuxuu ku ololayn jiray hees tidhaahdaa baashiiba haraaday ilaahay baa aqbalay haraadba waynu ka bixi weynay annagu waxaanu wadnaa maanta mid waqalku da'ayo waar waqalkii ma aragteen makhluuqa yaryar ee socday quraantadu ka mid tahay waxay qaadaysaa waqalkii baa da'aya waxa hadala kulli laga soo duway in la ku gaftabeen amba ilaado wadalkii ma hadii soo laga qaadasay dalka marka qabsataa baa inta kala qaadaysa qofku mid baa sheegaya dalka ay jooga wadal daaro iyo ciidaqada. dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay garaadada cuqaasha waxgaradka iyaga oo dhammaantood cadeeyay inay codkooda ku taageerayaan xisbiga isbeddeldoonka ee wadani murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. gobolka Sool Xaysimo iyo Sanaag cuqaashi ka tiri salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo gobolka Caynba codka aad weydiisateen iyo go'aanka aad weydiisateen hiyalaweyta gobolka wuxuu isla qaatay inay ka aqbalaan waqtiga maqaysay mid labaad iyadana waa mutadadooyna أنا وحنا لا يعطي لك الخبر والآن يقول لي ولا ديالك كلمة ومدار تقولي كبراء حطيه بين الشيء سيرنا بيعني كلمة يعني وحضر الله توسعه أذكر نبي حولي هل هذا لكم مرساق وانا مرين أبو بانك أنا مرساق هذا لكم الصورة كان أنا لا يريد دورهم دفع الحروب وهم الصورة بعض الشيء يعني سبتين وحاول ضمعي إنه كنت الله عدك ملك الدنيا ساسا مضمع صنع ولقادم بأنه فرق الله أن كنت الله عدي يكون كلا شقيسنا قلت عن كلا شقينا عدي يزيان كلا شقيسنا وإسلاء في طعنا يجب سؤال الله سنة الله ويهلنا وطلنا على الذي سلوينا كسر بهذا ما شاء بيننا ومجالد من الدول الكيمي أرنتها واحد بالله واحد خيالي وعلى سواسة واحد خيالي هذه هذا ما كتير عبد الرحمن ومن أغيا وبدم متعلمة هذه قلتي ذكروا دقات بدن ومن أنا أنكره هذه أي صورة دشوا وجاني ترى أفريقيا أردن دبليو waxay diyaar u tahay dhammaan codkeeda inay siiso mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro dadka codkooda yalla dikada dadka maayeeyada hadii shalay lagu yiri codkooda siina wada idin ma jirsiite annagu haddaan nahay qoyska lagu naanayso barkadka yaana la yiraahdaa ballan waxaanu ku qaadnay rag iyo dumarba inaanu garxaj siino وأنا ملك على كلامه. بالبحث waxaan ku bilaabay إلى عدك السيرة رجع يقول maanta waxba doonaysan noolati maade waa idinku soo dhaweynana
وأن كسر دويننا ماشي نصير كذا يدن كذا يا آية هذا أي كار قصدا ينكتب ما يصيرنا وأن كسر دويننا محمود هذا أسكر محمود قريش سومالي تي في لا سعنود